السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. tan iyo bilowgii sahminta hawada sare maadaama ay aad u yareed cilmiga hawada sare iyo ogaanshaha dhibaatooyinka lagala kulmi karay duulimaadyada lagu tagayo halkaasi ayaa saynisyahanadu bilaabeen adeegsiga xayawaanada si loogu diro hawada sare loona ogaado dhibaatooyinka macquulka ah ee lagala kulmi karo. Hawlgalladan ayaa ahaa kuwa ka dheer naxariis waxaana ku nafwaayay xayawaano badan iyagoo aan wax dambi ah ku lahayn una qalmay in si nabdoon ay ugu noolaadaan noloshooda. Naxariis darida iyo cilmi yarida markaa jirtay ayaa sabab u ahayd in nolosha lagu qori waayo xayawaanada sida Laika, Felicite, Albert, Ham iyo kuwa badan oo kale. Muuqaalkan ayaan si kooban kaga hadli doonaa qisada murugada leh ee xayawaanadan iyo hawlgalkii lagu qatalay naftooda iyadoo lagu dulgambanayo ilbaxnimo iyo baaritaano cilmi. Magacaygu waa Maxamed Xuseen, ku soo dhawaada xalaqadeena maanta. kadib hawlgalkii ugu horeeyay ee ay midowgii Sofiyeedkii ku sahmiyeen hawada sare ayaa injineeradii Sofiyeedka bilaabeen qorshadii labaad ay ku tagi lahaayeen hawada sare. Hawlgalkan ayaa gabi ahaanba ka duwanaa midkii hore ayagoo markaa u hana qaaday si ay ku noqon lahaayeen kuwa ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee noole naf ku jirta hawada sare geeya. Hawlgalkan ayaana loo doortay in la isticmaalo xayawaanka eyga waxayna bilaabeen sameynta markabkii lagu qaadi lahaa eygan ee Sputnik 2 iyagoo adeegsanaya waxyaabihii ay ka barteen markabkii koowaad ee Sputnik 1. si dhaqsi leh ayay ku gabagabeeyeen sameynta markabkan iyagoo dadka ka dhaadhiciyay in markabka lixjibaarka ka culuskii hore ay si lahubo u kontrooli karaan. Saynisyahanadii Sofiyeedku ayaana hawlgalkan u doortay koox eeyo dhadig ah maadaama ay yihiin kuwa ka yaryar jir ahaan misna ka dabacsan kuwa labka ahi. waxaana bilowday tababaradii loo sameynayay. markay idlaatay muddadii tababarka ugu dambeyn kooxdii eeyada ahaa ayaa waxaa laga xushay Laika in lagu fuliyo hawlgalkan iyo in Albina ay noqoto midda kaydka oo haddii Laika ay wax kala qabsadaan ayada lagu bedeli doono. waxaana la bilaabay diyaarinta eeyadan iyagoo lagu fulinayo qaliimo si jirkooda loo geliyo qalabyo lagula soconayo garaaca wadnaha, heerarka neefsashada, cadaadiska dhiigga iyo dhaqdhaqaaqa jirkooda. shaqaalihii ku howlanaa mishinkaasi qaarkoodu ayaa sheegay in tartamadii loo qabtay labadan ay Albina ku guuleysatay balse maadaama ay goordhow ay Albina dhashay saynisyahano qaar ay diideen in Albina caruurteeda laga kaxeeyo bedelkeedna ay Laika noqoto tan ku dhimata hawlgalkan. maalinkii taariikhdu ay ku beegneed November 3, 1957 abaaro 5:30 subaxnimo ayaa waxaa hawada sare u duulay markabkii siday Laika iyadoon aqoon halka uu u sido iyo waxa ay ku dambeyn doonto. sawaxanka iyo cadaadiska uu markabkan sameeyay xilliga uu ka caayay ayaa aad u cabsi gelisay Laika. garaaca wadnaheeda ayaa la bijibaarmay. wuxuu markabkii kor u sii kacaaba Laika iyadoo nool gudaha ay u gashay hawada sare dherer lagu qiyaasay 152 mitir waa 92 mayl. muddo lagu sheegay 103 daqiiqo ayuu markabkii sii dhex duulayay hawada sare ilaa ugu dambeyntii uu bilaabay in heerkulkiisa kor u kaco ilaa 90 digrii. muddo yar kadibna uu bilaabay in kaabsuulkii ay ku jirtay Laika dab kiciyo misna gubto. nasiib xumo Laika ma aanay awoodin inay ka cararto ama dhaqaaq kala sameeydo maadaama meeshan ay ku dhex xirneed iyadoo halka ka nufweyday kuna dhex gubatay. markabkii ayaa muddo dhan 15 bilood ku dhex duulayay hawada sare maadaama cid kontroosha ay lahayn ilaa ugu dambeyn uu dib ugu soo laabtay dhulka bisna uu ku burburay intii uu soo galayay hawada dhulka. halkaana waxaa ku raadba ay Laika oo aan nasiib u yeelan xitaa jirkeeda gubtay in uu dib ugu soo laabto hoygeeda kookabka dhulka. dowladda Mareykanka ayaa iyaguna tartan kula jiray Sofiyeedka xagga sahminta hawada sare iyagoo si lamid ah adeegsanaya xayawaano balse bedelkii Sofiyeedku ay adeegsanayeen eeyo. saynisyahanada Mareykanka ayaa adeegsanayay koox daanyaro ah maadaama caqli ahaan iyo dabci ahaanba ay yihiin xayawaanka u yara dhow basharka. duulimaadkii ugu horeeyay waxay u adeegsadeen daanyeer loogu magac daray Albert. taariikhda markay ahayd June 11, 1948 ayaa markabka V2 oo sida Albert u hayaamay hawada sare. cadaadiska zaa'idka ah ee uu Albert kala kulmay duulimaadkii ayaa sare u qaaday garaaca wadnihiisa. markabkii markii uu hawada sare u galay dherer qiyaastii 63 kiiloomitir ayaa Albert halka uu ku nafwaayay dhibaato kaga timid xagga neefsashada. sanad kadib duulimaadkii xigay ayay ku fuliyeen daanyeerkii labaad oo ay ugu magac dareen Albert 2. daanyeerkan oo noqday midkii ugu horeeyay ee gaaro masaafo dhan 134 kiiloomitir 83 mayl. balse nasiib darro kadib markii saynisyahanadii isku dayeen in markabkii uu saarnaa dib u soo celiyaan oo ay dejiyaan ayay awoodi waayeen
dayin in ay xakameeyaan misna baarashuudkii uu ku degi lahaa ay u soo bixiyaan sidii ayuuna ku burburay Albert II halka ayuuna adduunka kaga hayaamay labadan dhacdo ee foosha xun kuma aynan quus qaadan ee mar saddexaad ay haddana waxay u direen mid kale oo ay ugu magac dareen Albert III bishii Sebtembar 16keedii isla sanadkii 1949 midan oo noqotay tijaabadii ugu xumayd ee ay sameeyaan kadib markii markabka uu ku qarxay masaafo dhan 10 kiiloomitir oo kaliya in dhulka u jirta sidii ayuuna Albert III kula hoy noqday saaxiibadii isagoo lagu qatalay wadadii kuwii ka horeeyay la mariyay kadib Albert III waxay kaloo direen laba oo ay ku kala magacaabeen Albert IV iyo Albert V labaduba ma jiro mid badbaaday oo waxay wada noqdeen kuwa qaaday wadadii saaxiibadoodii hore muddo waxaa hakaday tijaabooyinkii ay Mareykanka ku sameynayeen daanyeerada ilaa laga gaaro sanadii 1959 marka oo ay isku day kala sameeyeen waxaana hawlgalkani lagu fuliyay daanyeer ay u bixiyeen Ham oo lagu magac daray taliyaha xarunta baarista Holloman Aeromedical ee gaashaanla dhexe Hamilton Blackshear tirada guud daanyeerada ee xaruntani lagu hayay ayaa ahayd 40 daanyeer kadib tartano badan oo loo qabtay waxaa laga xushay 18 iyadoo wareeg kasta ay ku hareeyeen dhowr daanyeer ilaa ugu dambeyn lagu xusho Ham oo ku guuleystay inta ugu badan testiyadii la sameeyay waxaana la biloobay in la siiyo tababaro uu kaga qayb gali karo hawlgaladan iyagoo waliba adeegsanaya casharadii ay ka barteen dhowrkii daanyeer ay hore u dileen naftoodina qataleen mid ka mid ah tababarkii la siiyay ayaa ahaa in la baray badhanka uu taaban lahaa kadib markuu arko nalka buluuga ah oo falash bixinaya haddii uu qaldo waxaa jiray qalab yar oo koronto kaga dhijinaya lugta hadduu saxana waxaa qaybta hoose kaga soo bixi jiray xabad moos ah tababarkan waxaa loogu sameynayay si hadhow marka uu ku jiro hawlgalka hawada sare hadday dhacdo in qaladaad ay yimaadaan uusan ka argagixin nalka buluuga ah ee iftiimaya balse uu badhanka taabto sida uuna mooska ku helo deedna uu kaga mashquulo waxyaabaha dhacaya maalinkii ay taariikhdu ahayd 3 Janaayo 1961 ayaa markabka lagu magacaabo MR2 oo sida Ham loo diray hawada sare wuxuuna tagay meel lagu qiyaasay 252 kiiloomitir intaa kadib waxaa sii adkaatay in la xakameeyo markabkii saynisyahanadii ayaana go'aansaday in dib ay ugu soo celiyaan dhulka nasiib xumo way ku adkaatay in ay sii xakameeyaan oo gacantoodii ayuu ka baxay markabkii oo uu ku jiray Ham ayaa biloobay in uu u soo jihaysto dhulka waliba isagoo ku socdo xawaare aad u sareeya waxay u muuqatay in tani ay tahay guuldaro hor leh iyo waliba daanyeer kale oo naftiisii la qatar geliyay markabkii ayaa ugu dambeyn ku soo dul dhacay badweynta Atlantic nasiib wanaag Ham wax dhibaato ah soo ma gaarin halkii ayaana laga soo bixiyay waxaana dib loogu naqay xaruntii xanaaneynta ee laga keenay halka ayaana lagu iloobay misna 10 sano uu kali ku ahaa maadaama dantii laga lahaa lagu fushay 1983 ayuu dhintay Felisaid waxay ahayd baysadii ugu horeysay ee hawada sare loo diro taariikhda markay ku beegnay 18 Oktoobar 1963 iyadoo qayb ka ah howlgaladii sahminta hawada sare ee Faransiiska Felisaid waxay ka mid ahayd 14 bisadood oo dhadig ah oo loo tababaray duulimaadyada hawada sare bisadahan ayaa waxaa dhanka maskaxda looga rakibay elektaroodyo qalab yar oo lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa neerfahooda inta duulimaadka uu socdo tababarada la siinayay bisadahan ayaa ahaa mid la mid ah kuwa la siinayay dadka basharka oo loo barayo hawada sare sida in mashiinkan la dul saaro isagoo ku wareeganaya xawaare aad u sareeya bixinaya sawaxanka markabyada hawada sare ay bixiyaan oo kale si hadhow bisadan aynan uga argagaxin xawaaraha zaa'idka ah ee uu bixin doono markabkan marka uu duulayo iyo sawaxankiisaba muddo 2 bil ah ayuuna tababarkaasi socday ugu dambeyn 17 Oktoobar 6 bisadood ayaa isugu soo haray wareega kama dambayska ah ee tababarka waxaana la doortay Felisaid oo markaas umadeeda ahayd ama loo yaqiinay C343 culeyskeeduna wuxuu gaarayay 2.5 kilogram sababka ayada loo doortay ayaana ahayd in Felisaid ay ugu degnayd misna aynan cabsi muujin xilliga lagu jiray tijaabooyinkii hore maalinkii taariikhdu ay ku beegnay 18 Oktoobar 1963 8 subaxnimo ayaa markabkii siday Felisaid loo diray hawada sare wuxuuna hawada sare gudaha u galay dherer dhan 152 kiiloomitir 92 mayl ku dhawaad 13 daqiiqo oo uu socday intaa kadib saynisyahanadii howlwadeenka ka ah howlgalkaasi ayaa isku raacay in dib loo soo celiyo markabka iyagoo ka cabsi qaba in waxyeelo ay soo gaaraan hadduu dhaafo masaafadaasi markabkii siday Felisaid ayaa dib ugu soo laabtay dhulka si nabdoon ayuuna u soo degay sidii ayna Felisaid ku badbaaday iyadoon wax dhaawac ah ka soo gaarin howlgalkaasi muddo kadib xaaladii Felisaid ayaa isbedeshay oo xanuuno ayay bilowday inay wajahdo maalinba maalinka ka sii dambaysa iyadoo ka sii daraysa baaritaano badan oo lagu sameeyay xaaladeeda kadib saynisyahanadii ayaa sheegay in xanuunkan haya uu sababay howlgalkii misna waxay go'aansadeen in ay si nabdoon u dilaan yacni nafta dhaafiyaan
hadday xitaa ka badbaatay dhibaatadii markabka weli kama aanay badbaadin tan shaybaarka 2 bil kadib ayaana la dilay Felicity iyagoo fiirinaya sida howlgalkan uu ugu geystay waxyeelo maskaxdeeda howlgal aan wax micno ah ku soo kordhinayn nolosheeda ay ku nafweeday Felicity oo u qalantay in si raaxo leh ay ugu noolaato halkuu Eebbe ku abuuray ee ah koonka dhulka howlgaladan lagu diraayo xayawaanada waa kuwa si joogto ah loo sameeyo mana jiraan tirooyin sax ah oo la dhihi karo inta xayawaano ayaa hawada sare loo diray balse waxaa la og yahay in xayawaano kala duwan loo diray sida duqsiga eeyada daanyarada bisadaha jiirka diidiinka rakaha cankabuudka iyo kuwa kale oo badan balse nasiib xumo xilligii hore waxaa aad u yaraa tirooyinka xayawaanada ayagoo nool misna aan dhib qabin dib ugu soo laabta taa waxaa ka sii darnaa in ragga waday howlgaladaasi ay ogaayeen in xayawaanadan qaarkooda sida laayka laga yaabo in ay dhintaan haddana sida oo ay tahay way u dirayeen hawada sare sideed u aragtaa xayawaanadan iyo ficilada lagula kacay ma tijaabo cilmi iyo horumar mise dhibaateyn iyo waxad gudub lagula kacay xayawaanadani fikirkaaga igula wadaag qaybta hoose ee commentiga halkan ayaan se kaga baxaya muuqaalkan haddii uu ku cajibgeliyo ha ilaawi inaad la garayso lana sii wadaagto asxaabtaada ku xiran barahaaga bulsho waa inuu muuqaalka kan xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh amaana allah